أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ay hesho oo markii la furay laga xisaabayo weeye. maxaa yeelay dalaaqu waxa uu qaybsamayaa mid sunniya iyo mid bidciya iyo mid laa walaa u qaybsamaya. dalaaqa markaa sunniya haddii lagu furo duhur oo markaasi aan lagu jimaacin ayaa loola jeedaa, waa ku tegi doonaahe. waxay markaasi dalaaq daahirkaas ay tahay ayay tirsanaysaa saddex daahir markay marto oo midka maaragtay saddexaad kabacdi waxaa weeye xayl ay dhacniso ayaa cuddadeeda ay go-aysaa. sidaas marka waxaa qaba imaamuna ashaafici iyo imaamu maalik ayaa sidaas qaba. imaamu abu xaniifa waxa uu leeyahay aqraada waxaa loola jeedaa xaylka ayaa loola jeedaa. imaamu axmedna hal riwaayad ayuu ku raacsan yahay. khilaafkaasuna waxaa weeye xagga saxaabadana waa ka jira oo hadda waxaa weeye ibnu cabbaas waxau maaragtay ku raacsan yahay, oo ibnu cabbaas waxaa ku raacsan imaamuna ashaafici iyo imaam maaliki iyo riwaayad imaam axmed tiisaa ku raacsan. laakiin waxaa weeye abu xaniifa wuxuu leeyahay aqraadu waxaa weeye waa xaylkau leeyahay. marka hadda sidaas ayaa maaragtay loola jeedaa. hadda khilaafkaana wuxuu imaanayo ha layidhi oo culummadu ay leeyihiin haddii naagta maaragtay daahir lagu furo saan horuu sheegnay ayuu imaanayaa weeye. kabacdi ay xaylsho, kabacdi ay daahir noqoto, kabacdi ay xaysho, kabacdi ay daahir noqoto, kabacdi ay xaysho weye. saan horuu sheegayna waxaa weeye imaam maalik imaamu shaafici waxaa weeye ayagu aqraadu agtooda waxaa weeye waa adhaartaas weye. imaamu axmedna awalul amrigiisa ayaga ayuu ku raacsanay weye. laakiin markii dambe riwaayad kaleentood waxa uu ku raacay imaamu abu xaniifa oo ku raaca weye. oo ayagu waxay leeyihiin damka ayaa loola jeedaa ee aqraadu ma ahan adhaarta ma ahan weye. sidaasaa marka khilaafka u jiraa weye. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ha kortaanow dha ilaahay halaathata quru'in qur'iyaalo oo saddexa oo nikaaxa ka joogaanow dha ilaahay. walaa yaxillu yow dha ilaahay xalaal uma ahan lahunna haweenkaasow dha ilaahay an yaktumna inay qariyaan maakii khalaqallaahu alla uu ku abuuray fii arxaamihinna riximyaalkooda alla uu ku abuuray. walaa yaxillu lahunnaw dha ilaahay haweenkaas oo waxaa weeye ciddada tirsanaaya xalaal uma ahanow dha ilaahay an yaktumna inay qariyaan maakii khalaqallaahu alla uu ku abuuray fii arxaamihinna riximyaalkooda uu ku abuuray. maxaa loola jeedaa wixii markaasi riximkooda ilaahay ku abuuray oo welad ah ama saxayl ah weeye. maxaa yeele naagtaa markay madkuule ay ahaaday oo waxa weeye la furay waxaa dhici karta in waxaa weeye welad uu ku soo baxo oo uur ay bixisaa dhici karta, amase waxaa weeye inay xaysho, labadaasay uun mid tahay. marka arrimahaas inay qariyaan xalaal uma ahanow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala hadday yihiinow dha ilaahay in kunna hadday ahaadeen yu'minna inay rumaynayaan billaahi alle iyo weliyomiyoonkii alaakhir oo dambow dha ilaahay. hadday yihiin haween mu'minaada waxaa weeye wixii ilaahay ku abuura riximkooda inay qariyaan xalaal uma ahanow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala. maxaa yeele waxaa riximkooda ilaahay ku abuuray waxaa ku tacalluqaaya axkaam ayaa ku tacalluqaysa. axkaamtaasna waa axkaam la doonaayo in la oofiyo. marka mar haddii axkaamtaas in la oofiyo la doonaayo haweenka mu'minaadka ahu inay qariyaan ma ahan weeye. laakiin kuwaan hadda mu'minaad ahayn ayaa meesha ka baxaya weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala in kunna hadday ahaadeen yu'minna billaahi alla inay rumaynayaanow dha ilaahay iyo weliyomiyoonkii alaakhir oo dambo. sidaas markii ilaahay yidhi haddana alla wuxuu yidhi wa bucuulatuhunna raggoodow dha ilaahay. bucuushan waxaa weeye aswaajtoodiyaa loola jeedaa. raggii ayaga furay ayaa axaqu ku xaqnimo badan biraddihinna cishashadoodow dha ilaahay. inay rajciyaystaan ayaga ayaa ku xaqnimo badan haba baa-inaanee weeye. laakiin waa goormee fii daalika ay fii zamani tarabusi weeye, kurashadaa zamankeeda. markaa waxaa weeye ay nikaaxa ka joogaan oo ciddada ay ku jiraan raggii horay u furay ayaa cishashadooda ku xaq lahow dha ilaahay. ilahi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa bucuulatuhunna raggoodiow dha ilaahay ayaa axaqu ku xaqnimo badanow dha ilaahay biraddihinna cishashadoodow dha ilaahay. fii daalika ay fii zamani tarabusi weeye kurashadaas
zaminkeedow dha ilaahay waase goorme in araaduu hadday doonayaan raggaasoo dha ilaahay islaaxan hagaajin hadday doonayaan oo waxa weeye rag iyo haweenku markay kala tagaan sida qaalibkaa waxay ku kala tagaan ayagoo waxa weeye qof walba qofka kala dhibaato uu ka tirsanaayo marka raggu hadday doonayaan islaaxow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala inay dhexdooda ay ka sameeyaan oo waxa weeye aan naagtaan loo soo celinaynin in la dhibo aan loo soo celinaynin marka waxaa la isku boorinayaa in markaasi waxa weeye ragga markaasi waxa weeye inay macnaha haweenka ay soo ceshadaan weeye marka hadda qofkan qasadka isagu uu leeyahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku boorinayaa weye ee waxaa la yidhi markaasi hadda shardi ma ahan baa la yidhi inay soo ceshadaan weye marka hadda dalaaqan la sheegaayo oo waxaa weeye ilaahay uu leeyahay wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna dalaaqaas waxa weeye dalaaqa oo rajciga waaya la yidhi naagti markii waxa weeye cuddatu rajciye ay ku jirto in ninkeedii uu soo ceshado asaga ayaa ku xaqnimo badan baa leeyahay waa macnaha ku xaqnimo badan baa la leeyahay ee hadda haddii waxa weeye ciddada ay iska baa-into oy markaasi kabacdi asagu markaasi xaq ku yeelan maayo oo dadka uga xaq badnaa maayo marka hadday cuddo ku jirto horta waxaan isaga ahaynoo xaq kula maba jirtaba maba jiraanba ee marka waxaa laga wadaa markii ay baa-into oo ayadoo masalan ba 3 dalaaqa aan lagu furin ay baa-into ayaa markaasoo kusii xaq leeyaha laga wadaa laakiin waxaa weeye markaan kalentood mayaa layidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa bucuulatuhunna raggoodii ow dha ilaahay ayaa axaqu ku xaqnimo badanow dha ilaahay biraddihinna ceshashado ow dha ilaahay muraajacadooda weeye fii daalika ay fii zamani tarabusi kurashadaa zaminkeedow dha ilaahay markay ciddadaas ay maaragtay ku jiraan oo waxa weeye ay nikaax ay ka joogaan weeye in araaduu hadday doonayaan ow ilaahay raggaasu islaaxan islaax hadday doonayaan dhexdooda inay hagaajiyaan hadday rabaan weeye haweenta in loo soo celiyo in la dhibo lama rabo weeye laa diraarulmar'ati naagta dhibkeeda in loo soo celiyo lama rabo weeye rajcadu markaas xaaraan weeye ninkaan naagta markuu soo rajciyeysanayo waxa weeye dhib naagtan oo ku dhibaayo inuu usoo rajciyeeyo xaaraan bay noqonaysaa weeye marka waxa weeye dhibaato ayaa markaasaa ka imaanaysa oo haddii waxa weeye asaga xataa qalbiga hadday saas ugu qarsan tahay horta asagu xaq waa uu leeyahay rajcada laakiin hadduu asagu saas u soo celinaayo waxau gelayaa shay xaaraam ahoo muxarama ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ku cadaabaya arrintaas weeye marka waxa islaaxantaasu markaasi laabudda waayo in islaax la doonayaa shardiga walahunna u dha ilaahay haweenka waxaa u sugnaaday oo waxa weeye ragga ay ku leeyihiin mithlu ladii kii masalkiisow dha ilaahay calayhinna ayaga korkooda ahaadoo xuquuq ah haddana markii waxa weeye laga warramay dalaaqi iyo maaragtay rajcadii laga warramay iyo sida markaasi waxa weeye ay ku kala habboon tahay xuquuqda markaasi waxa waaye bayna zawjayn u dhaxaysa ayaa ilaahay noogaga warramayaa marka hadda haddii taas wax yar tii hore anugu noqono naagta hadday waxa weeye ay baa-into ayadoon lagu furin 2 dalaaqa ka badan aan lagu furin oo hal lagu furaanba 2 lagu furay haddii ay baa-intoon la soo rajciyeysanin ninku waxa weeye nikaax la-aan ayay isku soo noqon koraan waase noo imaanaysaa marka laakiin markaas waxa weeye asagu waxa weeye asaa kusii xaqnimo badan baa leeyahay laakiin in kaleentoodna markaas iyaguna way guursan karaan maxaa yeele cidda kuma jirta markaas hadda xuquuqdigaa ilaahay ka warramaya u dhexaysa walahunna waxaa u sugnaadow dha ilaahay haweenku ay ragga ku leeyihiin mithlu ladii a meesha ku jirta mithlu ladii kii masalkiisow dha ilaahay lahum ayaga u sugnaadow dha ilaahay ragga calayhinna haweenka ugu sugnaaday walahunna haweenka waxaa u sugnaadow dha ilaahay mithlu ladii kii masalkiisow dha ilaahay calayhinna ayaga korkooda ahaadoo xuquuq ah bilmacruufi si macruufow dha ilaahay oo sharciga wanaag ku ah weye waxaa la rabaa markaasi xusnul cushra weeye mucaamalo wanaagsan weeye iyo waxaa la rabaa tarku liraar weeye iyo dhibaato in laga tago oo waxa weeye ragga waxaa laga doonayaa haweenka markaasi cushradooda inay wanaajiyaan oo waxa weeye aysan dhibin ayaa la doonayaa oo masalan ba hadda rajcadatan in lagu dhiga la dooni maayo dhibaato loo soo celiya lama rabo weye
haddana waxaa la rabaa mucaasharo wanaagsan in markaasi lagula mucaamaloodo ayaa la doonayaa oo aan la dhibin weye. alxaasil waxaa la yidhi ninku wuxuu maaragtay leeyahaa la yidhi xuquuq ayuu haweenta ku leeyahay. waxaa weeye xagga dabkiga iyo xagga ajniga iyo xagga kansiga, waxaa weeye wax la kariyo iyo wax la ajiino iyo guriga la xaaqo, waxyaabahaas ayaa ka mid ahaa la yidhi khidmada oo markaasi waxaa weeye baadiniyada ahaa la yidhi. naagtu iyaduna waxaa weeye xuquuqay ku leedaha la yidhi rajulkaa la yidhi. nafaqada yaa ka mida, kiswada yaa ka mida, waxaa weeye maxabo iyo jacayl inay muujiso ayaa ka mida weye, iyo waxyaabo badan. marka hadda mumaasalada aayaddan waa fii mudlaq alwujuub baa la yidhi, ee markaasi ma ahan ba la yidhi sifatu lxuquuq maahan ba la yidhi. oo waxaa la leeyahay raggu waxay iska leeyihiin xuquuq dheeraada ayay iska leeyihiin, waase noo imaan doontaa. walirijaali calayhina darajatun ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala, waana sida tanoo ilahay haddau noo sheegaya. marka hadda mumaasaladan waxaa weeye xagga wujuubka qof walba inuu qofka kaal xaqu leeyahay waajib tahay ayay caddaynaysaa. laakiin ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walirijaali ragga waxaa ugu sugnaaday calayhina haweenka korkoodow dha ilaahay darajatun derajo ayaa ugu sugnaatay. fadiilo ayay leeyihiin, waxyaabo dheeraadahay ku leeyihin xaqa weeye. oo waxa weeye waxaa ka mid a ragga in la adeeco ayaa waajib noqonaysa. naaguhu raggooda inay adeecaan ayaa waajib ku ah weye. maxaa yeele waxyaabo badan oo markaasi dheeraadha ayagaba la saaray, oo waxa weeye maharkiyaa ragga la saaray, nafaqadii ayaa la saaray, kiswadii ayaa la saaray, maskanka ayaa la saaray, wax badan ayaa ayagaba la saaray. maadaama wax badanoo xuquuqa ayaga la saaray, ayaguna waxaa weeye xaq dheeraada inay yeeshaan, sidaas ayay ku imaanaysaa. walirijaali ragga waxaa ugu sugnaadow dha ilaahay calayhina haweenka korkoodow dha ilaahay darajatun derajo ayaa ugu sugnaatay. derajadaas waxa weeye waa fadiilada dheeraadkaa weye. wallaahu allow dha ilaahay casiizun allihii qaalibu weye. ilaahay subxaanahu wa tacaala mulkigiisa qaalib ayuu ku yahay, oo cid ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hor imaan karta ma jirto. xakiimun allihii fal suugan weeye, waxyaabaha khalqigiisa u maamulaayo xigmad ayuu ku dejinayaa. maxaa yeele hadda axkaamtan laga warramaayo waxa weeye xigmo ilaahiyay ku dhisan tahay, oo ilaahay addoomankiisa isaga ayaa abuuray, isaga ayaa yaqaana. marka waxa weeye wax walba xigmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dejiyey, oo maslaxada ummadda ay ku jirto iyo ilaahay addoomankiisa maslaxadoodoo dhan ayaa ilaahay shay walba markaasuu ku dejinayaa. marka ilaahay wuxuu yidhi wallaahu alle casiizun allihii qaaliba weeye mulkigiisa, xakiimun allihii fal suuban weeye, waxyaabaha uu maamulaayo khalqigiisa waxaa laga wadaa yalacu shaya fii maxallihi, shay walba ilaahay subxaanahu wa tacaala booskiisa u dejinayaa. marka waxaan xuquuqda hoo laga warramaayo waa shay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba maxalkooda dejiyey. waxa weeye haweenka xaqooda lagu tuman maayo, oo waxa weeye lama xaqiraayo. raggana sidaasoo kalentood waxa wax dheeraada loo siiyey waxa weeye waa xigmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. maxaa yeele ayagaba wax badanoo haweenka la siin ayaa lagu fadilay, markaasaa xuquuq gooniya ayaa ayagana la saaray. marka qof walba inuu ogaadaa la doonayaa waxaanu inay yihiin xigmo rabbaaniya. qofku hadduu qof mu'mina oo muslima uu yahane ilaahay sidoo wax ka dhigay ayuu raalli ku yahay.